magaalada Kismaayo ayaa laga daafuray shirkad cusub oo lagu magacaabo Warsan ATM Limited taasoo ganacsatada Kismaayo u soo bandhigtay fursado ganacsi oo ay ku sameyn karaan maalgashi. Shirkadan oo kamid ah shirkadaha ku shaqeeya sarifka lacagaha kala duwan ee dunida ayaa dadka ku dhiirigelinayay in ay maalgashtaan iyadoo shirkadu sheegtay qofkii ku darsada ganacsiga ay wadaan lacag dhan $1,000 in uu helayo 20% faa'iido ah taas oo uu bil kasta qaadanayo lacag dhan $200. Maxamed Cabdinaasir oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo hal-abuurka ganacsi si dhaqaalaha dalka uu kor ugu kaco. Waxa la yiri wadamadu kolkay soo korayaan gabdhaha yaa xooga la saaraa si wadankaasi u soo koro. Dadka wax qoraasay yiraahdaan aniga ma dumarka xooga la saaraa weeyda. Marka hadda inagu macal business ahaan waa inaan dumarka xooga saaraa waan maleynayaa. gabdhuhu waa inay business kana keenaan dawladahana muxuu ahaa soo dhisaan waxay dhan waliba qaybta security iyo meelaha corruption ka laga ilaalinayo gabdhaha loo badiyaa bay yiraahdeen si ay u suura gasho inay dadku yara xishoodaan ama gabdhuhu ceebtay necab yihiin oo ninku wuxuu sameeyaa xogaaga intuu isku urursado ka sideynaya akhyaaray xooga hal la saaro business-ka waan soo dhaweynaynaa aad baan idinku taageersanahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada dadku ha ka qayb qaateen muxuu ahaa cid kasta oo shacabka kamida oo u baahan su'aalaha iyo waxay qabtana ha laga qanciyo meesha idinku iman lahaayeen u sheega. Imaam Rashiid oo ka socday dalada Junsa ee ururada bulshada rayidka Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in shirkadaha dadku ay maal gashanayaan ay la imaadaan xanaan ku dhisan amaano si damaanad qaad loogu helo dadkana xoolahoodii aysan uga lumin. laba shay baa muhiim noo ah laba shay waxa weeyo amaano xoolahan aan dhiibanayno amaanadooda bal faa'iido yeelkeeda intii yareedo dhiibtay inay in nabadgelayso oo na qasaaraynin oo inteedii aan ayna cirka aadaynin faa'iido yeelkeeda amaanadaas inaan helo oo mulxamad waxaan amaanadii aan damaanad amaana aan helo taas waxa weeyo waa mid noogu muhiimsan. mid labaad oo noogu xigto waxa weeyo annaka dad muslim ahaan nahay waxanagu waa kooban yihiin jid cad baan ku soconaa jidkaas cad wixii ka leexsan waa ku wareerayna wixii waa yihiin wax xalaal ah oo wax xalaal ma yihiin oo culimadii ma kala soo tashateen oo ma soo weydiiseen oo wixii wax xalaal ma yihiin labadaas ayaa noogu muhiimsan. haddii labadaas la helo waxa weeye dadku waa jecel yihiin inay faa'iidaan annaguna dad dawlad la'aan iyo ganacsi la'aan iyo wax walba ku soo dhaceen baan nahay oo waa u baahannahay in ma gacan qabto oo kor dadka nagu soo kaco waa u baahannahay. Faaduma Maxamed oo ah maamulaha shirkadda Warsan ATM Limited ayaa sheegtay in hanaanka ay ku shaqeynayaan ka shirkadahan uu yahay mid amaano ah oo qofka maal gashanaya shirkadooda marnaba uusan soo gaaraynin khasaare hantiyeed. waxaan ka maqlaayay yacnihii dumarka wax loo dhibto waa run dumarka wixii loo dhibto way adkeynayaan loo dhibto waa amaan marka waxaan jeclaan lahayn haddana loo dhibto xoolaha inaan adkeyno. ani markii hore before intaan imaanin company-ga ana lacag ku darsaday waana dhadhamiyay lacagtiina waa dhadhamiyay anoo joogo maxaa la dhahaa Muqdisho lacagtayda ay soo dhacday tii kalena waan sugayaa marka xoolaha meel fiican bay maraysa xoolihiina anagana gacanta ku hayna anagana hayna oo dumar ah marka hadda sanadkana dumarka aamina marka dumarka wax loo dhiibtaa ku soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin.